kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idlaantii baa meel joogtaan iyo si waliba uu muuqaalkayga idin soo gaarayo halkan waa DTN Dadaab Television Network xaruntiisa dhexe ee magaalada Dadaab waxa barnaamijka waxbarashada ee telefishinka DTN Dadaab Television Network maanta martino ugu ah maamulaha guud iskuulka Tawfiq Schools marka ugu horeen fursadda macallin adigan ku siinayaa maamulaha guud iskuulka Tawfiq Schools ayaa tahay bal hadii aad marka ugu horeyso bulshada ku daawanayso guud ahaan Cabdullaahi ku soo dhawow iskuulka Tawfiq waxaan ahay Idris Yusuf Barri maamulaha Tawfiq Schools waa maasan tahay macallin Idris waxaad tahay sida noo sheegtay maamulaha guud Tawfiq Schools bal hadii aad taariikh kooban naga siiso asaaskii iskuulkan Tawfiq Cabdullaahi iskuulkan waxaa la asaasay qaybtiisa primary-ga systemka hore 844 markii loo raaco waxaa la asaasay 2014kii 2014 arday waxaa loo bilaabay 20 arday ah maantana ma aragtay ardaydu waxay maraysaa 400 oo arday qaybta kale oo ma aragtay high schoolka secondary-ga waxaa la asaasay 2017 waxaan qiyaasi karnaa in muddo xilli aad u dheer ah ay ka soo wareegtay مساجر بسكول توفيق سكولز أي أوفرستين امتحانات قرن أي وطنك سديد جر أي أوفرستين لو كوني لحتون قينا باللاوين إلا سنة تبودن به لو كون لو وطنك سنة كنا معرتي أرضي بأوفرستين إسا لو كون لو وطن سدحة قيبتا بريماريا قيبتا سكندرينا أفر جر سدح جر أي سمين وحنا باللاوين لو كون لو وطنك واتهاي مركا عن أوجدبنو sidaa sheegtay qaybta hoose ee primary-ga iskuulkiina waxa uu imtixaanka qaran ee wadanka ka qayb galay sida noo 8 jeer iskuulka sarana waxa noo sheegtay Tawfiq Schools in 3 jeer iskuulka sarana waa imtixaanada qaran ee wadanka sameeyay natiijooyinkiisa bal ka waran iyo horumarada uu ka sameeyay Cabdullaahi iskuulkan sanadkii 2016 ayaa u horeeyay imtixaanka qaran uu fariisto wuxuuna ahaa iskuulka kaalinta koowaad ka soo galay Dadaab sub county markii loo fiiriyo maartay sub county aan joogno anaga arday uu horeeyay iskuulka maartay wuxuu ahaa arday uu horeeyay ee Dadaab sub county ka soo galo number 1 gabar ayana ahayd waxaan dhihi jiray Aisha Faisal waxayna aaday iskuulka sare ay aaday haddana waxay sameynaysaa medicine ay sameynaysaa inta jeer 8 jeer ay sameeyeen imtixaanaadka iskuulka Tawfiq u fariistay waxay ahaayeen inta badan waxay qaadanayaan kaalinta koowaad kaabkan hadda aad aragto oo Koreyaalo waxa la dhahaa super cup ayaa la dhahaa waxa bixiyay xildhibaanka hore iskuulka 3 jeer marka qaato number 1 ay u hari jiray marka waxay daliil u tahay kaabkan 3 jeer aan qaadanay number 1 kan qaadanay ayuu daliil u yahay kana waxa bixisay Window Trust oo lagu sharfay kaalinta koowaad ee aan ka galnay iskuulaha maartay Dadaab sub county حتى 2020 waxaan jeclahay Garissa County iskuulka Tawfiq wuxuu ka soo galay kaalinta saddexaad Northeastern wuxuu ku jiray top 10 tobanka iskuul ugu horeeyaan ayuu iskuulka Tawfiq ku jiray waa qisa aad u dheer baad ka sheekaysay in kaabkan hadda horteeda yaallo oo ahaa kaab loogu talagalay in la siiyo iskuulada natiijada wanaagsan ka galo waliba qisada la yaab kale waxa weeye in iskuulka 3 jeer isku xigto hogaamiye natiijada imtixaanada qaran ee wadanka in la guddoonsiinayo idinka maamul ahaan Tawfiq Schools ahaan sidee baad isleedahay way idinku suurta gashay inaad kaabkan 3 jeer isku xigto qaadaan Cabdullaahi waxay noo suurta gashay teamwork ahaan iskaashi xagga macallimiinta ardayda iyo waalidiinta iyo maamulka marka aad haysato macallimiin tayo leh oo garanayaan waxay qabanayaan macallimiin iskuul oo dhan macallimiin way joogaan laakiin marka fiirso macallimiinta marka noo joogan anaga waa macallimiin tayo leh oo u hagar baxaan ilmihiina ma artay soo saaraan waxaana keenaysa arrinta ayada ah maamulka oo ma artay la shaqeynaya macallimiintii iyo waalidiintii iyo ma artay ardayda iskuulka Tawfiq oo wada shaqeyn ka dhaxayso macallimiintooda iyo xagga ma artay aadaabta ay leeyihiin saas ay umaleynaya ma artay inaan ma artay ay noo suurta gashay inaan 3 jeer isku xigto aan qaadano kaalinta koowaad waa tahay sidaa sheegtay waxa ugu muhiimsan ma aragtay idin suuro galiyay in natiijooyin wanaagsan iskuulku u keeno waxa weeye in macallimiin iyo ma tayala iyo aad sameeyeen bal waxaad naga warantaa macallimiinta markaad qaadanaysaan
intaad ka qiimeysaan cabdullaahi macallimiinta markaan qaadanayno waxaa la fiirini shahaadooyinka uu wato iyo experience-ka uu leeyahay inta jeer uu iskuul usoo akhriyey arrimahaasoo dhan aan fiirina akhlaaqdiisa hataa anaga waan fiirinaa marka intaas aan helno anaga waxaan maarata macallimiinta u sameynaynaa meelaan dejinaynaa meeluu seexdo helayaa macallimiinta maarata macnaha kama dhigno inaan lacag fara badan siino laakiin tacaamulka xagga maamulka markay arkeen iyo niyad wanaagga iyo wada shaqaynta macallimiinta iyo maamulka ka dhexeeyo macalinkaasna markaa uu u haqarbixi ilmaha laakiin macallimiinta haddaa is dhahdo maalan kan waa soomaali ma ahe maaragtay ku adkay oo maarsan yeel maaragtay macalinkaasna wuu ku istaagay sidoo macallin waa la iska fiiriyaa saas daraadeed waxaan aaminsanahay macallimiinta anaga inay dadaal dheeri ay bixiyeen ilmahana maaragtay sidoo kaleete ay macallimiinta markay arkeen xaaladooda environmentka maaragtay iskuulka ay la qabsadeen iyo ayagana maaragtay niyada gashadeen inay dadaalaan saasay maaragtay mada kale aan ka hilmaamay ardayda hadda aan ku dhahay waxay qaateen number 1 number 3 Garissa County ay ka soo galeen waa arday iskuulkan ku bilaawna Cabdullaahi ilmihii baby aan ku bilaawna waa ardayda ee kaalinta fiican oo zaid ku fiican noo keeneen haddana waa form 2 ay yihiin waxaan rajaynayaa markay form 4 gaaraan inay kaalintii kasii fiican inay keenaan okay waa macallin markaa ka soo gudubto ardayda waa arday aad u tiro badan sidaad noo sheegtay magaaladana waa weyn tahay ardaydaas iskuulkana meesha ku yaallo waa baxsan tahay marka sidee bay ardayda iskuulka ku keentaan ardayda horta iskuulka akhrisato dhammaantood oo magaalada ka yimaadaan arrintaas ayadana waxaa noo suurtageliyaa ardayda meesha la keenaayo gaari ayaan leenahay 3 gaari ayaan leenahay gaariyahaas ay salaada lagu soo qaaday arday markii salaada iskuulka u imaado iskuulka tawfiiq u imaado ilaa iyo 11 ilaa iyo 10 saac ayuu meesha ka baxaya qayb ay u kala baxayaan marka gaari ay jiraan qaadan oo daabulayaan hadda waxaan ku sheegay qalato oo muhiim ah iskuulka ardayda akhrisan qaarkood waxay ka yimaadaan magaalada maartay meelaha jiraanka magaalooyinka noo dhow sida ifo oo kaleete arday ka yimaadaan ay jiraan ardayda waxaa muhiimka Cabdullaahi aan rabnaa ku sheego arday waxaa jireen hoos nagala soo bilaabeen oo stand 8 bogan haddana Mount Kenya iskuulka akhrisanayaan oo wax cajiib ka aan maartay ku si farxsan waxa waaye ardaydii meesha si aadeen inay iskuulay ay tagaan ee number 1 ka soo qaataan marka ardaydana waxaa lagu keenaa gawaari ayaa lagu keenaa waa maasan tahay dad badan waxaa laga yaabaa Tawfiiq Schools inay maqleen balse wali aan arkin haddii aad u tilmaanto Tawfiiq Schools goobta ugu yaalo iskuulka Cabdullaahi iskuulka Tawfiiq wuxuu ku yaalaa dhabarka dambe ee Red Cross markaan u sii socoto qaybta maxkamadaha okay waayahay maxaad ugu baaqi lahayd waalidiin badan oo jiro ardadooda halkan dhigtaan kuwa kale oo ayaga daneenayo inay iskuul Tawfiiq soo gaaraan ilaahay waxaan ugu baaqayaa bulshada maartay Dab iyo kuwa kale oo maartay iskuulka Tawfiiq garanayaan ama maqleen waxaan u sheegayaa iskuulka Tawfiiq inuu u hayo tacliin sare oo tayo leh meel walba tacliin waa laga helaa waxbarasho waa laga helaa laakiin waxa ugu muhiimsan waxa way Cabdullaahi waxbarasho tayo leh cunuga markuu wax soo barto class 8 uu soo bogo ama secondary uu bogo nin arday noqon karo inuu iswadi karo meel walba uu tago jaamacad haduu aado high school haduu aado meel walba uu tago la qabsan karo soo la qabsan kara waa inuu akhlaaq leeyahay waa inuu leeyahay discipline oo akhlaaq ah iyo tayo waxbarasho inuu leeyahay kudina waxa la helaa iskuulka Tawfiiq la helaa waa tahay ka waran haddaan arday aniga ku keensado ardayga maxaa la barayaa ardayda horta iskuulkan anaga waa integrated way arday qaybta maarta secular oo dawladda tacliinta xagga dawladda waa la barayaa secular qayb waxaan qabnaa ayana oo madrasa oo la baro ardayda waxa la baraa carabiga la baraa xadiitha la baraa fiqh la baraa waxa kale oo bartaan siirada nabi sallallahu alayhi wasallam iyo tawxiid macallimiin waxa noo joogan oo u xil saaran ardayda akhlaaqdooda iyo diinta inay ilmaha ka wacyi geliyaan oo diinta ay baraan cunuga inta marka baxo madraso aad waxa laga bilaabaa thanawi laga bilaabaa ama cadaadi laga bilaabaa waa tahay Tawfiiq Schools maadaama aad maamulka tahay qaybta sare bal ka waran imtixaanadii 3 jeer baad u fariisateen natiijadiina iyo horumarka aad ka sameyseen maxay tahay Cabdullaahi horta iskuulkan high schoolka sare waxaan bilawnay 2017 kaan bilawnay haddana 2023 ayaa la marayaa 3 jeer ay sameeyeen imtixaanka 2020 arday sameeyeen ardaydii waxa weeye kaalinta labaad ay ka soo galeen Dab County
2021 kana kaalinta koowaad ay ka soo galeen 2022 na kaalinta labaad ay ka soo galeen marka kulligood Cabdullaahi waxa muhiimka oo aniga maartay aan aad ugu faraxno ka maamul ahaan iyo waalidiin waxa waaye ardayda iskuulkan markay ka baxaan toos waxay u aadaan jaamacad u aadaan intaas soo arday ay akhrisanayaan tacliinta sare maxaa la dhahay medicine akhrisanayaan qaybaheeda kala duwan qaar ay TV akhrisanayaan qaarna macallinimo Cabdullaahi waxa aad cajiib hadaan soconaan ku tusi karaa arday iskuulka primary inta ka bogeen oo high school ka bogeen oo maanta iskuulkan macallimiinka waxaan kaloo maanta ku faraxsanahay arday kale inay iskuulaha maarta jiraankana ay akhrinayaan maarta macallimiinka yihiin marka waxaan arrintaasna waxaa keenaysaa ardayda in hoos laga soo dhisay tayo fiican ay leeyihiin tayada cunug markuu leeyahayna wuu socon karaa hadda iskuulka dhahar ilmihii 2022 arday baa bilaabeen class way sii akhrisanayaan hamigooda ayaa sareeya waa tahay adiga waxaa tahay maamulka Tawfiq Schools hiigsigaaga mustaqbalka iskuulka inaad geyso aad rabto muxuu yahay Cabdullaahi hiigsiga iskuulka aniga eegor marka la asaasayo iskuulka waxa loo asaas waxa waaye markii la arkay tay xumada ka jirto iskuulada Dadaab Sub County ama general iskuulaha qaar yaa horta iskuulkan loo asaasay hatta loo ma furin aan ku dhihi karaa lacag bis laga faa'iido lacag inta laga faa'iidayo waa macna ma laha waxa uu muhiimsan waxa waaye qof bin aadam inta wax bartay oo asagana maarta bulshada haduu anfaco anaga hiigsigana marka waxa waaye bulshada Dadaab Sub County inay ka faa'iideystaan iskuulkan ardayda taya ayagoo leh inay inta ka baxaan ayaan ugu talagalnay waxa fiirka muhiimka ah aan ku sheegay waxa waaye Cabdullaahi ardayda hadda PP1 noo akhrisan iyo PP2 ga waxay garanayaan si wax loo qoro sidin loo akhriyana way garanayaan waxa ma soo booqatay indhahana ku soo aragtay marka waxa anaga aan raadinayno ma aha ilmo fara badan ma aha ilaahay 10 cunug ma joogto laakiin muhiimka waxa waaye ilmahaas inay tayo leeyihiin inay bulshadana anfici karaan iskuulkan hadhow in ayaga gacanta ku qabtaan ayaa la rabaa